السلام عليكم ورحمة الله. دمانتين سو دوادا ومahadsantihiin daawashada aad videogan daawanaysaan. magacayga waxaa la yiraahdaa Idris Abaadir Cabdi, waxaan deganahay magaalada San Jose gobolka California. muddo 4 sano ah ayaa waxaan ku dhex jiray ganacsiga Amazon iyo shirkadaha China si u shaqeeyaan iyo ganacsiga online-ka. marka last 7-8 months ayaan waxaan bilownay online academy oo la yiraahdo abadiracademy.com oo aan ugu talagalnay ganacsiga online-ka inaan dadka Soomaaliyeed uga faa'iideyno oo ku barno. sida la socotaanba Amazon waa shirkad aad u weyn, waa shirkadaha caalamka ama dalka Mareykanka marka la yiraahdo shirkadda ugu weyn ee online business ka sameysa weeye. Amazon last year waxay report gareysay 250 milyan oo customers inay wax ka gateen, 107 bilyan oo alaabna inay gatay. haddaba su-aasha ayaa waxay tahay, Amazon ma marketplace oo alaabta ay dadka ku kala gataan miya, mise waa shirkad iyada alaabta iska leh sida Walmart iyo Costco? haddaba aan ku kala cadeeyo, Amazon waa shirkad marketplace ah. marketplace waxaa laga wadaa waa shirkad dad shakhsiyaad aniga adiga hebel iyo hebel oo kale ay alaabtooda ku gataan. alaabta meesha aad ka keenayso iyo qaabka u gadayso waa different subject way, waan tagi doonaa insha Allah. laakiin waa fursad aad iyo aad qaali u ah, waa fursad qiimo leh, waa fursadda aniga Idrisa ee la hadlay ii saamaxday inaan shaqadeedii caadiga ka tago 7 bari aan gurigeyga ka shaqeeyo, aan ma taqaanaa waqti u helo familkii iyo caruurtii iyo waxbarashadii iyo wax walba. waa fursad maanta Abadir Academy online aan ku aasaasay oo aan markaan anigi bartay oo alxamdulillah aan dhaqaale fiican ka samaystay, aan haddana jeclaystay inaan bulshadii aan ma taqaanaa la wadaago. haddaba Abadir Academy iyo sida uu u shaqeeyo coaching programkiisa ayaan rabaa inaan wax yar idinkaga iraahdo inta aan Amazon aan dhamayn. magaalada San Jose ayaa waxaan ka bilaabnay class socda Monday to Thursday oo dadka lagu barayo ganacsiga online-ka. dadkan waa Soomaali, class-kan wuxuu ku baxaa af Soomaali. dad badan baa hadda shirkadahooda bilowday alaabtooda Amazon ma aragtay ku gadayo. marka sida uu shaqeeyo waxaa weeye qofka waxaanu ku tarin gareynaa oo baraynaa kow, haddii tusaale qofka uusan aqooninba waxa la yiraahdo Amazon iyo meesha uu ka bilaabi lahaa iyo qaabka wax ugu gadi lahaa iyo meesha alaab ka keeni lahaa iyo haddii uusan aqoonin, kow waxaan uga soo bilaabnaa the bottom oo ah shirkadda horta barnaa waxay qabato, waxa lagu gadi karo, waxaan lagu gadi karin, sharciyada ay u baahan tahay, sharciyada ma taqaanaa qofka uu u baahan yahay inuu shirkadda wax ku gado. markaan kuwaas aan qofka aan tusno oon barno ayaan kadib waxaan sameynaa inaan sharciyadii iyo business license aan u xareyno. kadibna waxaan sameynaa inaan website-ki aan la dhisno. kadibna waxaan sameynaa inaan Amazon account-ki aan la furno. kadibna alaabta Amazon lagu gadi lahaa inaan ka soo dhaxelno Amazon gudaheeda. kadibna aan modification ku sameyno, magaca company-geena aan ku sameyno. kadibna alaabta aan directly aan China u dirsano. alaabta xasuusnaa, qofka markuu alaab uu gadanayo oo dukaamada caadi uu ka gadanayo, alaabtaas waxaa horta soo sameeyay manufacturer ku yaala China most of the time, number 1. second, alaabta waxay soo martay wholesalers qole la yiraahdo. third, waxay soo martay distributors qole la yiraahdo. fourth, waxay imaatay retailers. adigu marka alaabta aad soo gadanayso waxaa ka gadatay retailers ka gadatay. now systemka anaga aan sameyno marka adiga ayaa company noqonaya. micnaheedu waxaa weeye alaabtii aad Amazon ku gadi lahayd ayaa directly waxaad uga soo qaadanaysaa manufacturing-ka. marka anaga ka Abadir Academy ahaan manufacturer aan la shaqeyno oo China jooga ayaa jira iyo kuwa cusub oo aan ku barayno sida loo raadiyo labadaba. marka shirkadaha manufacturing-ka shuruuday leeyihiin ay dadka ku xiraan. shuruudahaas ayaanu soo dhameynaa. markaan soo dhameyno, alaab walbo aad uga baahato China adigoo gurigaaga jooga ayay ku imaanaysaa sample-ki. now alaabta ka soo qaadad inaad Amazon wax ku gado ayaad go'aansatay, waxaad isweydiinaysaa alaabtan intee ku kaydiya, waxaad isweydiinaysaa imisa lacag aan ku bilaaba, waxaad isweydiinaysaa ganacsiga sideen u bilaaba. su'aalo noocaas oo kale laga yaabaa in isku soo dhacaan. anigoo isku dhex dardaraya videogan igaan raalli ahaada. insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa videoyo kale oo dhalinyaro hadda koorsooyinka qaatay online koorsooyinkeena qaatay oo bartay ganacsiga sida loo sameeyo oo hadda meesha ay marayaan
ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. laakiin qodobka hadda aan ka hadlay haddaan dib ugu laabto, manufacturingka markaad shuruudaha soo buuxiso company uu leeyahay, markaad soo buuxiso alaabta way kaa gadayaan. alaabtii adiga waxaa ku imaanaya hal xaba keliya oo qualityga alaabta aad fiirinaysa bisa. laakiin markii alaabta aad orderka ugu horreeya aad dalbato oo ama 100 xabo, 200 xabo, 500 unit markaad dalbato, then alaabta waxay directly u tagaysaa Amazon warehouse. adiga lagaagama baahno meesha ku kaydin lahayd, lagaagama baahno inaad adiga package gareyso, lagaagama baahno inaad adiga ship gareyso, lagaagama baahno haddii la soo celiyo inaad adiga mataqaanaa qabato customer service inaad sameyso, lagaagama baahno. adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad companygaadi sameysato, alaabta aad ku gadi lahaydna Amazon intaa kasoo dhex gasho, modification ku sameysato, manufacturing ka dalbato, kadibna alaabtii aad maaragtay Amazon saa ugu dirto. now alaabtaas each product Amazon ay ku gadaan 15% ayay qaadanayaan, inta kalena adiga iska leh. marka 15% ka waxaa la yiraahdaa FBA fees baa la yiraahdaa. FBA fees kaas waxaa weeye alaabtii shippingkii, handlingkii, receivingkii iyo warehouse storageka ayay kugu charge garanayaan. alaabtiina customerka ayaga u deliver garanay u geynayo. magaalo walba aad joogto waxaa laga yaabaa inay shirkadda Amazon delivery ka sameyso guud ahaan dalka Mareykanka. dhalinyaro badan oo Soomaaliyana waa ka shaqeeyaan oo deliveryga sameeya. laakiin su-aasha waxay tahay alaabta aad deliver garanayso ma isweydiisay cidda iska leh? cidda iska leh ma isweydiisay? qof adiga sidaada kaloo shakhsiya ayaa iska leh oo Starbucks iyo gurigiisa iska joogo, shirkadda Amazon ma laha. marka private labeling fursad ah ayaa mataqaanaa ku siinaynaa. waxaan ku siinaynaa haddii aad go-aan leedahay inaad barato sida Amazon ee u shaqeyso. xaqiiqatan dad badan baa ka faa'iiday. caalamka meeshaad doonta adoo jooga ayaad halkaa taleefankaaga as long internet aad haysato ayaad mataqaanaa businesskaada ka maamuli kartaa. businesskana sida u shaqeeya waxaa weeye sida hadda aan idiin soo sheegay. marka bal adiga research sameey, youtube-yada fiiri, Amazon FBA maxaa la yiraahdaa, Amazon private labeling maxaa la yiraahdaa, waxyaalaha isweydii, wadankaa rabto joog haddii aad mataqaanaa geli karto iyo haddii kale. now annaga waxaanu dhisnay maasha Allah training structure oo complete ah, qofka mataqaanaa wadayo from zero to the end wadayo ilaa ay mataqaanaa qofka alaabtiisa ay Amazon ka tagto oo alaabtiisa laga gato wadayo ayaanu sameynay. trainingkaas lacag baanu charge gareynaa. lacagtaasna qofka ama hadduu halka magaalada nala joogana one-on-one coaching ayaan siinayo, classkeena kasoo qayb galaya. haddii kalena koorsada waxay ku jirtaa online, halkaasuu ka gadanaya qofka, halkaasuu mataqaanaa kala soconaya. waxaa sameyn kara hooyooyinka guryaha jooga, waxaa sameyn kara mataqaanaa dhalinyarada shaqaysata, odayaasha, cid walbaa sameyn karta businesskan. kaliya shuruudaha waxaa weeye luuqadan inaad taqaano xoogaa, computerkan isticmaali karto, haddii mataqaanaa waxaas fiiri, waxaa qor iyo waxaas lagu yiraahdo aad sameyn karto. haddii aad sameyn karno cunug adiga dhashay kula sameyn karo, laakiin adiga ay kaa go-an tahayna iyadana waa fursad weeye. laakiin qiyaas markaad adiga aad sameysato company aad leedahay oo Amazon alaab aad ku gadayso, alaabtina directly manufacturing ay uga imaanayaan, waxaasoo howlna aad qabanayso adigoo gurigaaga jooga oo aadan dhinac uga bixin aad sameynayso. lacagta aad ku bilaabeysana Amazon business ay aad u yar tahay. dadka qaar $500 ku bilaabeen, qaar kuna ku bilaabeen, qofka ka badan haysto ku bilaabi kara. laakiin waxaan intaa u leeyahay qofka yani waa ganacsi intaad hoos ka bilowdo aad dhisi karto, aad ilaa mataqaanaa aad ka gaarsiiso heer. inta badan waxaan u qabanaa dadka hadday waqti fiican geliyaan 6 bilood gudahooda inay oga maarmaan shaqooyinka caadiga ah ay ka shaqeynayeen oo full time income ay ka sameeyaan. waliba waxaan ka hadlaynaa dadka Silicon Valley jooga, meesha ugu qaalisan ee Mareykanka jooga. kuwa kale magaalooyinka kale jooga waxaan qiyaasaynaa 2-3 bilood inay dhaqaalo ku filan ay kaga sameyn karaan. laakiin inta alaab aad ku gadi karto Amazon waa unlimited weeyaan, as long adiga aad tahay private labeling company, unlimited ayaad haysataa. marka insha Allah taala halkan waxaan ku reebayaa website-ka company-geena iyo telefonka. videoga mar rabo inuu dheeraado. haddii aad jeceshahay, su-aasha the bottom line waxaa weeye, haddii adiga waad is ogtahay, haddii aad jeceshahay isbedel inaad sameyso, isbedelkaas oo ah inaad ganacsi adiga aad leedahay aad sameysato, fadlan nala soo xiriir. website-keena waxaa weeye www.abadiracademy.com. telephone numberkeygana waxaa weeye 408-826-7614 weeyaan. insha Allah I hope to hear from you. haddii aad rajeynayso more information inaa hesho, khayr baan idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.